الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada halkani waa Macalin Abqari YouTube channel waa channelkini waa channelkaad uga barateen had iyo jeer inuu idiin soo gudbiyo luuqada Englishka kheybaheeda kala duwan si free ah maanta casharkeenu waa waqti vocabulary ahaa inoo socday khaasatan buugga loo yaqaanay 4000 essential English wordska kana koobnaa 6 buug oo serialka ah buuggan waa buuggii koowaad unitkuna waa unitkii 18aad si lamida 6 buug oo dhammaystiran buug kastahi wuxuu ka kooban yahay 30 unit kastahina waxaan ka sameynay video wuxuu leeyahay 20 eray oo target words ku tilmaamaya buuggu laakiin inta targetkaan ahayn oo kale aad ku baranayso ayaa ka baaxad weyn targetka inta uu ku sheegayo marka buugta total ahaan waa 6 buug waana buug serial taxan waana buug kasta 30 unit 30ka unit each unit ama unit kasta wuxuu ka kooban yahay 20 eray targeta sheeko history ayuu leeyahay sheekada qaybta Abqari online academy buugta duruusta sida guud ba luuqada ayaa ka socota cidii danaynaysa marka buugta dhammaystiran 6 buuga si guudna uu helayo midna uu heli karo macal sheekada waa la akhriyaa markaas oo maaragtay caadiga loo bixinayo laakiin marka YouTube kan soo dhigayno only unitka target wordska ma sharaxnaa cidii danaynaysa buugtan 4000 essential English wordska ayagoo maaragtay si fiican loo sharaxayo dhammaystiran ay naga heli karaan qiimo jaban macquul oo maaragtay cid kasta danaynaysa ay maaragtay ka faaiideysan kartaan insha Allah way nooga heli karaan soo dhawaada waxaan kaloo insha Allah rajeynayaa ardayda nagu taxan oo inagu taxan yihiin ardayda kale aan bulshada Soomaaliyeed ee luuqada aadka u daneeya jacayl inay luuqada bartaan waxay ka heli karaan Abqari online academy duruus joogta iyo course kala duwan oo luuqada Englishka sidoo kalena si free waxay u heli karaan Macalin Abqari YouTube channel soo dhawaada fadlan subscribe ta noo saara like tana waa sidoo kale commentina mawduucyada aad isleedihiin aad muhiim u yihiin oo macalinku inuu maaragtay soo sharaxo insha Allah nagu soo wadaaga marka insha Allah sharti like tana noogu dadaala marka casharka inoo bilaabanaa insha Allah haddaba casharka unitka 18aad ayaanu bilaaban doonaa balse intaanan bilaabanin sharaxaada insha Allah inuu dhageysano sida caadiga noo ahayd Unit 18 Word List Argue. To argue is to angrily speak to someone because you do not agree. We argued about where to go for dinner. Communicate. To communicate is to give information by talking, writing, etc. I communicated with Paul about his new ideas. Crowd. A crowd is a large group of people. A large crowd had gathered on the street to see the accident. Depend. To depend on someone or something is to need them. Children depend on their parents for many things. Dish. A dish is a plate. She put a clean white dish on the table. Empty. If something is empty, it does not have anything in it. My gas tank was almost empty, so I couldn't drive my car very long. Exact. If something is exact, it is just the right amount. Please use the exact amount of sugar for the cake. Fresh. If something is fresh, it is new. I just bought these oranges. They are very fresh. Gather. To gather is to collect several things, usually from different places.
Sam gathered some flowers for his mother. Indicate. To indicate means to show, point, or make something clear. He pointed to his eyes to indicate where he had hurt himself. Item. An item is a thing that you buy or sell. I have many items for school in my bag. Offer. To offer is to present someone with something. He offered me the keys to his car. Price. The price of something is how much it costs. What is the price of this item? Product. A product is something that is made. My sister has many beauty products in her room. Property. Property is something that someone owns. The house is now my property. Purchase. To purchase something is to buy it. I recently purchased a new car. Recommend. To recommend something is to say that someone should do it. My doctor recommended that I get some exercise. Select. To select something is to choose it. I hope that I selected the right answers on the test. Tool. A tool is something that helps you do a task. We used a tool to fix the window. Treat. To treat is to act in a certain way toward someone. The cats treated the mouse very nicely. inta waxay noogu dhan dhageysashadii aan dhegeysanayna unitka markana insha Allah aynu sharaxno ereyga ugu horeeya arg waa doodid ama murmid waay to arg inaad doodo ama muranto is to angrily speak waa inaad si cara leh u hadasho angrily waa cara leh speak na hadlid waay to arg means to angrily speak inaad si cara leh ula hadasho to someone qof because sababtoo ah you do not agree macnaha arrin ama shay ama wax ayaadan ku waafaqsanayn inaad si cara leh u hadasho to speak angrily to someone waliba qof aad ula hadasho because you do not agree we argued waxaan ku muranay about where to go for dinner halkii aynu cashada u aadi lahayn halkaynu cashada u doonan lahayn ayaynu ku muranay macnaha where to go for dinner halkan casho u aadi lahayn ereyga xiga ee communicate waa xiriir la sameyn ama xiriirid waay to communicate inaad xiriir samayso is to give information waa inaad xog bixiso by talking adigoo hadlaya or writing inaad qoraal ahaan u bixiso xogta dad la xiriirto qoraal kula xiriirto ama hadal la hadasho I communicated with Paul about his new ideas waxaan kala xiriiray Paul ninka la yidhaahdo fikradihii ama aragtiyadiisii cusbaa fikradihii ereyga crowd macnihiisu wuxuu noqonayaa dad fara badan oo isku soo baxay crowd is a large group of people waa koox dada oo aad u fara badan a large crowd soo bax fara badan ama dad fara badan had gathered ayaa ku soo aruuray gather soo aruurid waaye on the street ayaa wadada isugu soo baxay to see the accident say shilka u arkaan marka crowd waa isu soo bax waaye large crowd had gathered on the street ayaa isugu soo aruuray gather isugu soo aruurid waaye wadada on the street to see the accident say shilka u arkaan depend waa ku tiirsan to depend on someone inaad qof ku tiirsan tahay ama u baahan tahay something wax inaad u baahan tahay qof ama qof u baahan tahay ama shakhs shay is to need it them waa inaad u baahan tahay ku tiirsanaanshawa the children carruurtu depend on their parents waxay ku tiirsan yihiin ama u baahan yihiin waalidkooda for many things waxyaabo fara badan ay uga baahan yihiin waalidkooda dish waa saxan a dish is a plate laftigiisaaba saxana eragaas marka a dish saxan is a plate waa saxan dish iyo plate waa isku mid marka a dish is a plate waa saxan
She put a clean white dish on the table. She put waxay dhigtay a clean white. Clean waa cad, waa sifo. White-na waa sifo. Dishna waa saxankii. Marka clean wuxuu muujinayaa, sifaynayaa inuu saxanku nadiif yahay. White-na wuxuu muujinayaa midabka saxanka oo cadaan ah. Marka article a-na waxaa la siiyaa ereyga nounka. Weliba markastoo erey sifaa la raacsiiyo article la raacsiiyo sifa aan dhahay haddii erey noun sifa la raacsiiyo waa in article-na uu ka hormaraa. Ma jiro good boy markaan ma dhihi karo, waa ina a good boy idhaahdaa. A clean house ma dhihi karo ilaa aan idhaahdo clean house ma dhihi karo ilaa aan idhaahdo a clean house maahan. Marka markastoo adjective ereyga lala isticmaalayo nounka waa in uu ka horeeyo article. Article-kaasi haddii adjective-ku fowl ka bilaawdana ana raacsiinay, haddii shibana ka bilaawdana a raacsiinay. Marka a clean white dish on the table. On the table waa isla socotaa, waa miiska dushiisa. Waxaa la yidhahdaa on the table. Adverb placement waa lahaa. Prepositional phrase-na waa la yidhahdaa. Empty waa faaruq ah. Ereyga sifa inuu yahay iyo inuu noun yahay iyo inuu adjective yahay inuu verb meesha waa ku muujinaya. Vido verb u taagan tahay, entu noun u taagan tahay, adjdan adjective u taagan. Marka empty waa sifo waaye. If something is empty, hadday wax faaruq yihiin, it waxaas ama shaygaas does not have anything in it. Waxaa ku jira gudihiisa ma jiraan. It does not have anything in it. In it gudaheeda wax ku jira ma jiraan. Shaygaas is empty hadii la yidhahdo waa faaruq, wax gudaha ugu jira ma jiraan. My tank gas, tankiga macnaha salbatooyadeeda shidaalka, was almost empty. Faaruq ay ku dhowdahay. So I couldn't drive my car very long. Sidaa daraadeed gaarigaygu meel aad u fog maan u kaxayn karin. Shidaal badan kuma jiraan. Waa zero u dhowaaba. Exact waa cadad saxan. Waa exact sax ah. Cadad. If something is exact, hadday wax sax yihiin, it's just the right amount. Waa cadad loogu talagalay. Please waa fadlan use isticmaal exact amount of sugar. Cadadka sokorta loogu talagalay for cake doolshaha. Haddii k1 kg ama half kg nus kilo ama kilo loogu talagalay intaasoo lagu sameeyo intaasoo xabo oo kuna ka badan exact amount isticmaal. Fresh waa cusub. Wuxuu markaysan muddo oolin sida cuntado kale, sida khudaarta marka la soo guro kale, markaas la soo guro fresh ay tahay oo kale, sida cunto marka la kariyo kale, wax aan frinjeer la gelin oo muddo la haynin markaas waa fresh ma aha marka. Marka fresh waa wax cusub. If something is fresh, it's new. Waxaas waa fresh waa wax cusub waaye. I just bought these oranges. Waxaan hadda iibsaday. Bought waxay ka timid buy. Waxaan hadda iibsaday oranjigan. They are very fresh. And they are very fresh maxaa waaye? Hadda lasoo geedaha laga soo gooyo la keenay macna. Halkani waa Ustad Abqari YouTube channel. Ku soo dhawaada. Kana faideysta. Fadlan subscribe-ta, like-ta iyo share-ta waa xaggina. Ereyga xiga gada waa isu soo aruurid waa isu imaansho waa gada isu imaansho waa. Ereyga gada isu imaansho isu soo aruurid hadii kale. Together is to collect several things. Waa inaan la soo aruuriyo dhowr shay. Collect waa soo aruurin, several waa dhowr, things waa shay. Dhowr shay inaad soo aruursho usually badana from different places. Iyadoo laga keenayo goobo kala duwan. Different kala duwan places no goobo usually no badana waa. Sam ninka la yiraahdo wiilka la yiraahdo gathered some flowers for his mother. Wuxuu u soo aruurshay ubaxyo ayuu hooyada u soo aruurshay. Ereyga xiga indicate waa tilmaamid waa. Ereyga xiga waa tilmaamid waa. To indicate waa point out oo kale. Means waxay noqonaysaa macnaheedu to show inaad muujiso, point inaad tilmaanto, ama make something clear inaad wax caddayso. He pointed his eyes, wuxuu tilmaamay indhihiisa, to indicate to u tilmaamo where he had hurt himself, halka uu iska dhaawacay.
ereyga hurt waa isdhaawacid ama qofku inuu qof dhaawacdo kale laakiin hadda isdhaawacid waxaa ka dhigaya himself waxaa jira qoladan loo yaqaano reflexive aa la yidhahdaa myself yourself himself herself themselves itself marka tusaale ahaan markaad adiga aad isqanintoo kale ama isjartoo kale la isticmaalaa I cut myself waan isjaray waan isgooyay I bit myself waan isqaniinay mana I cut myself waa nafteedaan jara hadhihinaya hadda saas daqa ku macnayaan cut marka waa maxay waa jarid laakiin himself haday gasho ama herself wuu isjaray wuu isdhaawacaya laga rabaa inaad tiraahid reflexive aa la yidhahdaa qaybta grammarka ama mararka qaarna emphaticna waa la yidhahdaa mar wax ta'kiidiyaana jira laba qaab waaye marna pronoun oo emphatic pronoun la yidhahdaa marna reflexive pronoun la item waa shay an item is a thing waa shay that you buy or sell shay aad ama soo iibsato oo buy waa markaad shayga kusoo galayo lacagta inay kaa baxayso sellna waa marka shayga kusoo galayo macnaha lacagtu kusoo galayso shayguna kaa baxayo I have many items waxaan haystaa itemo ama shayo fara badan for school in my bag oo ku jira oo iskuulkaan u isticmaalayo oo ku jira boorsadayda offer waa siin ama soo bandhigid waayo to offer is to present someone in a qof soo bandhigto with something wax inaad siiso macnaha he offered me the keys to his car wuxuu siiyey gaarigiisa furayaashiisa price waa qiimo halkani waa Af-Somaali Abqari YouTube channel kusoo dhawaada fadlan like iyo share waxagina the price qiimaha of something wax ay joogaan waa cost iyo kale is how much it costs waa shayga intuu qiimihiisu yahay what is the price of this item waa maxay qiimaha shaygan what is the price waa maxay qiimaha of this item shaygan product waa wax soo saar product is something waa wax that is made la sameeyo my sister walaashay has many beauty products in her room walaashay waxaa qolkeeda yaala waxyaabo fara badan oo la isku qurxiyo oo maaragtay ayaa yaala many beauty products ereyga xiga oo property waa hanti waay property waa hanti haddii la national property hantida qaranka his property hantidiisa property is something waa shax oo wax that someone owns ee qof uu leeyahay own markaan waa verb marna emphatic loo isticmaalaa waa ta'kiid the house guriga is now my property gurigu hadda waa hantideydii marka intaadan gadan hantidaada ma ahayn laakiin marka lacagta iska wareejiso document la soo wareegto maxaa waaye the house is now my property gurigu hadda waa hantideyda purchase waa buy oo kale iibsasho to purchase inaad iibsato something wax is to buy it waa inaad iibsato buy iyo purchase same waaye I recently purchased a new car dhawaan ayaan iibsaday gaari cusub recently waa dhawaan purchased waa iibsasho a new car recommend waa la talin ama talasiin to recommend something is to say waa inaad tiraahdo someone should do it waxaas qofku inuu sameeyo kula taliso the doctor recommended dhakhtarku wuxuu kula taliyay that I get some exercise inaan jimicsi sameeyo aalamiiteeyo caafimaadaan ugu tagay laakiin wuxuu igula taliyay laftigeeda in jimicsi aan bilaabo select waa xulasho ama doorasho to select something inaad wax xulato ama doorato is to choose it waa inaad wixii doorato I hope waxaan rajaynayay that I selected the right answers on the test waxaan rajaynayaa inaan anigu doortay right answers jawaabaha saxanaa on the test imtixaanka inaan jawaabo saxan inaan doorto ama jawaabihii aan doorto inay ahaayeen right answers ayaan rajaynayaa ereyga tool waa qalab a tool is something waa wax that helps you kaa caawinaya adiga to do a task inaad shaqo qabato we used a tool waxaan isticmaalnay qalab to fix aan ku samaynayna the window daaqadii halaysneed ereyga treat waa daweyn marna waa la dhaqmid macnooyin badan oo kalena wuu yeeleeyahay ereygu to treat inaad qof la tacaamusho ama la dhaqanto is to act waa inaad u dhaqanto in a certain way hab towards someone qof si inaad qof ula dhaqanto the cats bisaduhu treated
the most waxay ula dhaqmeen dooliga very nice si aad u wanaagsan. haddaba 20 eray oo targetka ahayd ayaa intaa inoogu dhamaaday. halkani waa Macal Abqari YouTube channel. fadlan ka faa'iidaysano courseska ama casharada kala duwan ee ka baxa halkan. fadlan like iyo share aadan islaamaya. Ustad Abqari Maxamed Samata Ustad Abqari. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.